gabadha computer samaysay iyo gabadha gaari samaysay iyo gabadha ilmo dhashay teeba bikisada wuxuu qabatay ilmo iyo computer kee fiican ilmo iyo dayuurad kee fiican ilmo iyo gaari kee fiican waxay odhanayaan mujtamaca nuskiiba bilaa shaqo ah okay nuskee bilaa shaqo ah waxay ku odhanayaan dumarkoo dhami ma shaqeeyaan oo gabadhan 5 habeenimo intay kacday ilaa 10 habeenimo waxay qabataa waa maxay waxay odhanayaan ninku wuu soo shaqeeyaa muxuu ka soo shaqeeyaa 8 saacadood buu xafiis soo fadhiyaayo wuu soo noqdaa wuu soo shaqeeyaa gabadhuna 12 saacadood bay shaqeysaa laakiin keeda shaqo lama yidhaahdo magac kale keena guray nadiifisay reer bay cunno karisay caruur bay korisay dad bay haysay waagu si uu bariyay way shaqeynaysay ilaa gabalku uga dhacayay laakiin waxa la odhanayaa dadka qaarna way shaqeeyaan qaarna ma shaqeeyaan baa lagu odhanayaa waa tafsiir aad u qaldan oo la rabo dadka in lagu qaldo marka waxa lagu odhanayaa dumarkoo dhami ma shaqeeyaan waddankane waxoogaa ragaa shaqeeya dumarku way shaqo la'yihiin 9% bay ku odhanayaan ee dumarka shaqada ha laga qayb geliyo oo waxaanay wadaa waa maxay marka haddaad tan shaqo geliso gurigeeda soo haddana shaqaale